صح. ما شاء الله. thank you Faisal. أولا أنا ساك وأنا صوم مري محكمة ده مركا هي رنا هيت مركا 3 ساعة مركا هيت مركا وحبا مو اللي بيدي مقعيكم باللي بيدي يا نمبر مقرت نمبر كيس نمبر صح. كي اللي بيدي مقرت marka iska baxa lagu dhahay lagarkaaga la xiriira lagu dhahay magaalada صح. magaalada joogtaa wax kale su'aalo la weydiiyay ma jirin abo magaalada joogtaa waxaan joogaa Minnesota haye ma qasac maanta la xafiiska lawyerkan ku maray Zoom marka waka ma sha Allah marka kaliya baa martay dadka isku martay group ma ku martay Soomaaliya wiil kala ayagana mareen laba wiil kala ayagana mareen sidoo kale xawla madin garad labada wiil kale ka warqabtana xawla madin sidaas isku situation baa heedeen isku situation wiil adish yar adish dhaano saaxiibka ay yarka kale yarka kale ma aqaan adish laakiin waa qaan ma sha Allah marka waka judge magaciisa lagu dhabo Taylor Biala Taylor B waa isku judge okay gabadhaas kale adiga okay magacan buu weydiiyay marka individual laad wax individual la soo geliyay ma jirto ma garad individual lagu soo geliyay okay hadana meesha maxaa la ii sheeg meesha oo mastering iyo jirto xoog ugu midaan waa ever waa soo martay wax kale oo lagu dhahay Uganda waxaan ii sheegay kala door waxa saaran ma meesha kaas waxaas maan saddexdeen wax qof lagu dhahay ma jirto ma sha Allah ma saddex buu wax yar ii kaadi salaam alaykum macallin ani yarka xusil dhan saak isla marnay Zuma ka marnay judge keenana wuxuu joogay Texas buu joogay waxna la wareystay malahan waxaan la dhahay bas judge ayada la wareystay dadka kulli ma joogaan ay dhahday waxaan la dhahay marka ayaga laakiin hal saac murmayeen horto inta anaga noola wacid kadib ani waxay sheegayeen waa maqlayna banaanka fadhiyay wuxuu ka bilaabay inuu dhahay fursada waa hayaa March iyo April aydan waxay dhahday si degdeg baad hoosta naga soo geliseen waxaan Soomaaliyeed indhaha ku soo taagteen kulligeen dawladda naga soo way ka soo horjeesatay aniga waqtiina maadan siinin adiga way noo dooday horta kadib waa noola wacay kulligeen qolkii baa galnay anigoo 7 qof ilaa hal qof oo Zoom ka marayo oo meel kale joogay kulligeen judge-keedan wuxuu joogay Texas uu joogay marka adiga waxay ku heshiiyeen bish May ku heshiiyeen intaanan aniga gudaha galin soo markaan gudaha galaynaba aan la dhahay waa hal qof leela wareystay magaciisa yar hore fadhiye inteena kale waxna la weydiin ma lahan waxaan la markaa waa la soo gelinayaa wabillahi tawfiiq sidaas leen ugu soo baxnay anigana xusi soo sheegay warun May nolol gib todobadeena May nolol soo tuuray isla markiiba ma sha Allah good news kala soo kulantay marka ma sha Allah waxaan rabaa inaan sheegniyaho dadkan dhahayaan waa waxaas la yiri dadkan dhahayaan mana walba waxa ka fiican qofkii markaas maray ma garad hadii yar meesha saarnaa wax uu ka hadlayay Uganda iyo waxaas uu ka hadlayay dadka saaka inta badan oo mareen dhowr qof ay isla xiriirnay cid maxaa la Uganda iyo waxaas lagu soo hadal qaaday ma jirin marka waxa la yiri inta walaal saan dad noocaas marka qaar meesha iska soo qabsanayaan waxaan u arkaa aniga qaarkood inay ka tahay fowdo iyo maaragtay iyo dadka maaragtay lugooyinay qaar ka tahay wiilkaas asaga kama wada warkiisa asaga ma hubo laakiin way jiraan dad mararka qaar meesha soo qabsado laakiin sida lagu miisaamo waxa weeyaan fiir mujtamaceena waxay isku raacayaan hadda ilaa ay soo far 8 qof aan wareysanay 8 diin isku hadal baa wadatiin okay anaga marka caqligeena isticmaalayna caruur ma nihiin oo been laga dhaadhicin karo hal qof wuxuu yiri saameyn nagu ma yeelan karto 8 qof hadda soo fuushay wiilkii ugu horeeyay maaragtay Chicago ku maray iyo intiinaan oo dhan isku hadal baa wadatiin kulligeen same case waa dad ma taqaanaa tagay balantii tagay ama Zoom tagay oo haddana kulligood good news ka soo wada kulmay marka that's the most important part runta sidaas awligeed lagu ogaado runta waxa markhaati ma weynayso okay laakiin qofka markuu been sheegay maxaa la yiri qof maqan email dheer buu qofka ma taqaanaa oo markhaati gashtaa saas way dhacdaa marka ma sha Allah dad badan oo runtii run sheegay halkan noo soo koraan adigana waa ku mahadsantahay 100% ay walaalkii waa kasii tagaadaa mudan thank you my brother so far waa kaas warkii oo dhan waa iswada waafaqay alxamdulillah walaalaheen ducadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa u aqbalay aad baa loogu duceeyay sheekhi habeenkii waa u duceeyay culimadii kale waa u duceeyeen dadka walaalihii waa u duceeyeen
walba guriga ku yaalo dowladda lacag bay ka samaysay canshuura leeyahay waxa cajiibka waxa lagu leeyahay social security-ga lacagta la siiyo dadka waaweyn ee Mareykanka jooga ee wadanka ku dhashay ee shaqeeyo hadda waqti xaadirkan 2026 deetadaas ma fiirin kartiin waxay ka imaataa canshuurta hadda laga qaado dadka undocumented-ka ah dadka waaweyn social security ay qaataan qaar kun bay qaataan qaar 2 kun bay qaataan qaar 500 bay qaataan lacagahoodii hore laga guray waa iyo deetadana fiiriya lacagaha hadda la siiyo dadkaas oo retirement aan way waayeen intaan loo siiyo waxaa laga guraa canshuurta dadka undocumented-ka ah laga qaado weeyaan ma fahanteen ayaa laga guraa marka yaa lagu sheegin absolutely yaa lagu sheegin in mataqaana laga dhaadhiciyo maaragtay wadanka waxba kuma lihid canshuur kuma waxba ma bixisid waxaas yaa laga dhaadhicin immigrant waa tahay ninka cadaanka ah ama gabadha cadaanka intay bixiso kala bixisaa so don't worry about it same process la maraya shaqada dadka aad u shaqeeyaan ha dad waxaa jira wallahi 2 shaqo 3 shaqo oo immigrant ka shaqeeya jira waxaa laga yaabaa hal shaqo iyo barkeeda inay mataqaanaa ka qaadato canshuur ba fahmi karaa 2 shaqo 3 shaqo isku garaacaan waa la soo wada maray wadankan markaa ku cusub tahay waa jabaysaa okay dadka xataa sharciga lagu keenay oo wadanka yimid ayaa wallahi markaa wadankan ku cusub tahay bilowga hore waa jabaysaa shaqaa ku jabaysaa waxa weeye systemkii ma taqaanid waa laga faa'iideysanayaa waad wareeraysaa wadanka waa ku jabaysaa laakiin the good thing is waxa weeye haddii aad dadaasho horumar baad gaari kartaa dadaasho ku socda akhiyaat Idris, so you know one advice aan siin lahaa anigu Soomaalideena Mareykanka day u imaada walaal inta isku dayeen luqad intay bartaan absolutely intay wallahi ESL hatta you know luqada inisa dad Mareykanka way iska celin kartaa laakiin dhibaatada anaka haysato arkaysaa qof waxaan arkaa anigu you know Soomaalidan luqad iskuma dayno hadda waa one thing on social media ku arkaan especially madowga ay cadaanka dhaxayaan sidee dadkan inta soo jooga luqada ku hadli karin wayna isku dayay school ESL qaataan waa free even classes waxay jiraan wax bixinaysid library-ga you know true so that's the most important thing wallahi wana luqad barataan absolutely only ku furbaay ha wallahi ani I believe dhalinyarada inay bartaan you know markii hore wadanka inta badan dad waayeel la soo qaadi jiray Soomaalida marka eegno ama waayeel dad waaweyn soo dadka weyn oo qof oo 40 above 50 above luqad usan weligii arag way ku cusbeed way ku adkeyd laakiin hadda for example waxa usoo qaadan kartaa dhalinyarada darbiga boodka qayb waxay ka imaadeen Yurub qayb waxay ka imaadeen Afrika raskale Soomaali inta ka imaatay way yartay and you see 3 years waxay qabsadeen wallahi you can't imagine dhalinyarada 10 years dad joogay bay ka hormareen marka hadda I think xoogaa korba u qaadan yihiin dhalinyarada marka la eego dadka hadda imaaday iyo dadka hore isku mid ah mareynaya waxyaalo badan aan isu sheegay baa jira dadka hore xataa iyaga waxaa weeye bini'aadanku waa iska maaragtay way kala duwan yihiin dad u fadhida iska jira oo meelaha markay marmarayaan waxba ay haysan u malaynaysa laakiin iska maaragtay xagga luqadda ka hadlaynaa dad waaweyn u badnaayeen dadkii hore marka qof weyn xoogaa way ku adagtaa inuu luqad cusub weligii Soomaaliya dad ka imaanayeen magtahay hada laakiin dadka meelo kala duwan ay ka imaadaan it's easy hadda way ka fududahay sidii hore dhalinyarada waxa dareemaya ani inay hadda xoogaa 60% xoogaa Soomaalida inay luqad isku dayaan haye soo dhawaada akhyaarta maxaa haysaan maxaa soo kordhay maxaa la hayaa diris waa ku salaam baraada bismillaahir rahmaanir rahiim ayo ka qaaday niyo hal
su-aalan wadaa dhalinyarada qaar oo sharci-darro removable lagu siiyaa jirto muugta haye dhalinyaro hadleesaan maqlay oo removable nala siiyey without reason dheheesaan arkay lacalla niyow dadkaas haddii ay wadanka ay ka tagaan oo dariska ay tagaan next administration oo kale ay soo noqdaan dadkaas kiiskooda dib ma loo furi karaa isdhehesaa haddii ay iyaga istarxilaan ha ay dariskoo kale camal ay tagaan haddii even ay wax ka soo waayaan oo kale ama 3 sanad kadib ay wadanka dib ugu soo noqdaan ونيو ودك هو سيستم وينيو وحن حتى الادمنستريشن كدو isbedelo mararka qaar fiiri administration ka Trump haduu tago waxa laga yaabaa policy badan oo Trump uu keenay in uu administration ka dimuqraadiga markay imaadaan ay dhahaan okay arintan way shaqeysay way noo fiican tahay noogu sii wada sideeda famisa iyo qaar inay mataqaana ay ka tuuraan mid waxa jirta hadda uu Joe Biden 4 sano hore u haystay uu intuu asay qabsan koor Trump baasiyay oo canshuur jarid